nadaafadaan ka shaqeeyaa ilaa haddan ka shaqeeyaa maxaa jilbaha way xanuunayaan waxaan dhaqaa dheel dhan oo iskool oo kan oo kala ka weyn hadda arkiyo iskaan aan joogno kala iyaan iskool ku fadhiya laba laabkiis yaan subaxii 9 galaa 9 kale ka soo baxa iskoobay waxa iskoobay saas ma waxa lagu dhaqay ma bashaqo waa ama tigayga ba 2 sano soo dhiganahay 2 sano xirfadaas wax loo dhaqan lay barahay 2 sano waxa lay barahay dugsiga dhexe oo la yiraahdo dugsiga dhexe sharciga lagu qaato haddii xamar iskuulada iyo isbitaalada shaqo laga sii goor taas ma heli kara nasiib ku helo ma leeyahay ayaalo السلام عليكم خياري كلنتو wanaagsan ku soo dhawaada hanolaato aniguna waa Yaan Xuseen Cabdi barnaamijkan wuxuu kaga imanayaa magaalada Helsinki ee wadanka Finland oo aan booqasho ku joogo dadka aan ka helay waxa kamid ah Suldaan Saylace Suldaan Cismaan Suldaan Rooraye oo kamid ah Soomaalida dhaqanka ee ku nool wadanka Finland Suldaanku waxa uu xiiso ku leeyahay si gaar ah waa gabya waxa uu ka warqabaa xaaladda qurbaha waxaan barnaamijkan ugu casuumay bal inuu nooga sheekeeyo jabka yaala qurbaha markay timaado dadka salaadiinta ah iyo guud ahaan bulshada Suldaan Rooraye oo ku faraxsanahay inaan is aragno ku soo dhawaano sidoo kale noolaato waa jecelna haddaan ku ilaa warbixin ka sii qofka Soomaaliga ay xamar jooga masha Allah oo Soomaaliya jooga xaaladda qurbaha ayaan la qurbaha horta waad ila joogtaa dhib ay yaala waay anu markii aan 2009 imid waxaan moodahay inaan jannada adduunka gacanta gelinahay jawaanada lacagta in lagu soo daldala markii halkaan la iga soo dhiibay doonta ka soo degay bila macallin hadda ila joogay wiilal kale qaraabaa soo dhaweeyeen markay soo dhaweeyeen waxa la geeyay kam ku yaala Helsinki naagtu waxay ku tiri iscaawi wariyaha waxaan ku saareen marasado isma keenin meeshan hatta waa ii diiday inaan waa iska soo lugeeyaan oo meel maalmin leeyahay socda ayaan wiil yar oo socda waana qorraxdina waa dhacday barafkuna waa da'aya waa bish koobaad 27 waay marka barafku ugu daran yahay jaakada hataa wata mid hufan ma waa mid qorraxda Soomaaliya oo nin iska jira ma ahayn waay waxay ku tiri soo masaajid Ilaahay ii sahlay wiil yar arkay waxaan ku imaanay waxaad geeysaa meel masaajidkan tukaday ragiyaan warwarsanada deeqaan ah waxaan ku war hal geeyay meesha ta kuskus aan la keenay xaafada la isu gudbiyay islaameenkii waxa la geeyay kaamkii 12 bari markaan ku jiray waa la iga bedelay meel ila saalo oo u dhaxaysa Helsinki iyo Turku alla iga tuur waxa la yiri badar la idin karinayaa badarkaas aan cunaysan fayl soo gala lacag iyo warkeed iyo adduunyo midna ma jirto waay nin leeyahay Cabdicasiis Goodah meesha turjumaanka oo hadda xamar siifo iyo kaasoo gabar adeero ahayo tada albashi gabadhu qaba ilmo u dhashay waay meesha isku baranay Rooraye ku yiri ma Rooraye taha raqiya albashi aniga ilmo dhashay war soo dhaw sadaqay aan ahay ma sha Allah sayida meeshii waxaan ku roo nolosha masaanaha inuu meesha laga bedel bariyaan ku qaadi doonaa iska joog adriisa lagu qaaday Helsinki ugu soo celiyay gabadha abtu oo aan adeertay dhashay oo Yusra Ahmed Shaafici leeyahay waxay ku tiri abta adriisan ku qaaday waa kaamkii lagaga saaro magaalada u soo gashay meel Allah hada go'doon xiraha la geliyo wax ku imaanay wax qol yar lagu tuuray meeshaan badala ka cunaysa inta ku yaa Suldaan ku sahmiyay Finland wadankan cirifka Finland adigu ay fahmiyay waagi Itoobiyaanku noo yimid kala orod ku dhacay yaa li warbaxso ragga xogaa afmaalka ah oo hadallada yaqaan waa ah isna gaabiya lagu yiri oo dhinacna shabaabkii ka dilahay dhinaca dawladda Abdullaah Yuusuf oo Ali Geedi hogaaminayo hadda dagaalkii qarxayba asiiska ku aanshii wixii aanu ku afamooyaan in caafimaad oo fadhida Ali oo buu hoodle in Abdullaah Xasan markuu aan dhuux hanjabe ilaahum naciim aan ku baxsad waay markaas sahan ma jirin faracdiina lagu soo baxsan madax horta Yurub mar lagu tuur Yurub markii ayaan lagu soo tuuray saasa dhacday waay waa leeyla tali waxa lagu yiri hadaa sharci degdeg rabtid ku laaba xiradi hadaa adriis qaatid sharcigu waa adag yahay dadku waa soo batay mal muslimiin waa daahaysa waay anoo cagajiida oo Allah saddex meel markaan joogaa laygu cirsh Cabdicasiis ka yimid meeshuu geey waa iska joogo cuntadii aan ka soo naano 25 qof waxaan leeyahay meeshaan la ka bedelo way ku xumayd meesha waxay ka mid cunto kariso digaag hunoo wax gowracay aan la aqoon hadii la doofaarkii meesha yaallo adii nolol ma taal 25 ana cunto waa diidnay midka dooq leh marka anoo dooq leena waa noo yeeli doona dooq waa leenahay dooq waxaan ku leenahay in codkayga la qiimeeyo waay waana la bariyay naagi socialka iyo turjumaanka waxa lagu yiri cuntada cuna si degdeg ah leedin bedela meel ila yunsu ya degdeg 25 keen halka tuura
yuusuf markaan tagnay lacagtaa nala siiyey guryaa nala dejiyey anuu waa quuriyaa ama qol yaraa lay siiyey ku ursataa ay dhahaan quuradii aan sheegtay marka ma quuraysaa bas waa quuriyaa laakiin ugu talagashay waa xoogaa waxna waa ku riixanaya laakiin ma laga cabsanaya quuradaas aad ay baxaysa qol degdeg ah lay siiyo 8 bilood qolkaas ku jiray ilaa guri layga siiyo ka guur markaan waa ku caawisay quurada caawis waay markaan ku ursataa walaa la ii soo qoray ku ursataa quurada maxaa lagu sheegay ku ursataa la yiraahdo luqada ku ursataa afka Finlandiska waay ku ursataa waa aad aan quuriyaa wey waay adoo markii la siiyay qolkii nin lacagna gacanta loo galshayo waxa rabtay ilmahaaga u diraad waxa rabtay maamulkii anu gacanta ii gal waay markii saas dhacday meesha iska joognay 7 bilood ka bacdi أو طلاب بلاد كبعد ورئيس على ليش باهيدا أو قصوا عرّي يدبكي يقهي يوهي عن صوم مري حلقوا يرسدك دقا شرع الوصي دون نكي ورساني حكويري بالكيران شرع الوصي إلهي بالكيرو شرع الوصي nin odayaho akhyaaraho wadankiisii ku noolaayo soo qaxay aad taween waa u sheegay waxa ay nin iska dhaqan dukaan yar u furan yahay balaayo qabin xaafada buulxube iska degan wuxuu yiri xaafada Madiina la yiraahdo markaan kala sharaxay weerasha biyaha meesha loo aado meesha dadku u qaxay Itoobiyaanka hoobiyaasha ay magaalada ku garaaceen shabaabku u jawaabayaan kala qixi dhacay ilmihii aan u raray meesha la yiraahdo kaxshi qaaleed waxay ugu yiraahdeen ka waran degmada ku xigta ee waqooyiga mashay karta qodana la yiraahdo ku قالك يبوق صار وحداي وهذا ما تقدم لك سؤال ميو والوسيم ما اللي يراه ينسو كتر صار ليك تلي يراه الله يقصي طورات قول لي يسأل يقول لك لو قماي ماشي دوكسي يسكول لي جي نلاش واسي هو وحير حريص يروى اسكت من لكن سيد الله روي ما عرورت وكا بقنت عرورت ويا بقنت هاي دعوه افوري المي waxa la negative اللي يتيت maxal ودي maxal ودي ilmo korisay ku jiray qaarna adeer waxay qaarna gabadha la dhasheen adoo marka hore way sheegtay waxay u tii ilmaha ka daadabtay ilmaha lagu keen lagama day karaan ku yiri meel ugu soo tago malaha meel ugu soo wili guriga ku soo koreen in ayaga dhalay wada diiday ay roonaan ku yiri waana roonay saas ay khayr badnayd waa ku ceebay waay ayaan loo marka dambe lagu keenay kullu leeyma keenin Soomaali ii degay illa hadda qayrkaaba ku jiro Etoobiyaan markeenay dacwo xarii marka la diiday waa ashid Soomaali ku koreen marka jaamacada afar jaamacad dhigata ma sha Allah labana dugsi hoose saas oo khayr ma saas ay khayrkaaba ku jiro laakiin hadda waa la soo kacay waxa la igu cadaa hadda marka ay kugu sugan mid weynay ay soo wacsaa aba wallankii ingiriiska arinta xagee wax mara su'aala la weydiiyaa aba soo dhawahay ira suga way hadda marka ingiriis aad u guurtay ma adu ingiriis uma guurin laakiin waa rajada luga kula jirta way ayaa la kamid noqon qaba abwan waxaan rabnaa inaan ogaano Suudaan dhaqanka Soomaalida wad ogtahay dadka gabyaaga ah ma sha Allah waa dad wax ururiya waana waxa la dhaxlay oo Soomaalidu dhaxashay wax kale ma haysan maxaad ku macnayn lahayd wixii ka soo maray qurbaha dadku indha ka duwanaad ku arkaysaa waxa meesha yaale qurbaha horta ninka aqli leh horta dadku yeeli mahayaan oo aniga walaftayga waxaan dhihi jiray ninkii yiraahdo hal qayrka magaala oo asaguna si aad waxaan dhihi lahaa ninka wax garto oo Ilaahay ugu yahay waxay dhaarsan laba arkay tan lagu soo lugo sababtoo ah raggan aan ka soo tagay maanta waa tijaar kitiisu dhawatay iska dhaaf neel yar ninka u furnay maanta ma sha Allah marka xamar ku laabtay anaba calool xumo u dhintay marka cirna ma roogno dhaanki diyaaradda raacna dhul ma roogno waxaan nahay dad aan wadankiina ka soo qaxay Yurubiyaana ka u shaqeeyo ugu badan wadankan 2500 wax la wa 3000 kun gurigu ku baxshaa kuna biil u dira 500 maxay u goysaa marka ka roona wada yaan loo Yurub nin ka tahay waxa uu suunaha nolosha ninka ugu fiican guri waa 2500 ninka baska uu wada 2 sano u soo dhacda maxaad suugaan ka tiris Suudaan waxaan ka tiriyay gabayo rag hore soo qaateen oo dhibaatada in lagu samraa ee bawadaan ku samreeyo soo bitaladay gabayga Sayid Maxamed wuxuu ku calaalay markii dadkii ka hor yimid oo dhibaato badan dhacday horta gabayada aadan u qabtay oo gabay qabad ayay gabi jirtay abshir badasha culumana la dhigi waa gabayga abshir bacda ku saaxiibnay waay ay yiri war waa gabi kartaa gabay abti gabay hay ugu ducayn baan ku yiri mar rabe gabaygu sababta dambi xogaa dad ku weeraraysayo inuu marmar aflagaada kula galo marka qaar marna waa fiican yahay abshir bacda waxa lagu yiri abshirow habargeer waxa ugu wiilisa marka tir jubiye shabeelle waa jirnaa umana jeedna jeerin leey rag iska dhicinay ahayd ma ahayna qabiil kuma aayin xogaa rag iska celintu meesha ku jirta waxaan ku raayay baa kaaga Allah ayay baa kaaga saaxiibka aad u jeclaan oo nacag la badan buu ahaa aan heli karin wallahi saaxiib ayay waxaan ku raayay abshirow waa kaaga fiicnay nin Maxamed Cabdi Taala la yiraaho ayaa awoogi gabar isweydiiseen Xajiroora laba gabdhood isweydiisay labada gabdhood Xaliima la yiraahdo laba Xaliima la isdhaafsado
iyadii qaf dircaha codkare waxay ku tiri tulida abtinimo hala keeno oo cabdi naaleey walaal cabdi naaleey jeclada afarna la dhalato shiican naaleey xuseen naaleey iyo cilmi naaleey iyo culummo naaleey ayada waxaa dhacday tulida abtinimo waxaa diiday maxamed cabdi وداني روري قبران سين حول وروحو كو يعني ايما قصيسو هدا wax kala qaadaysa adinka reer isku ah waay iyay gabadhay soo wadata iyay gabadhay wata awoogay hooyaday dhalo shaqaale xaaja sida dhii jiray ayaa ku yirna inaan la leeyahay gabadha xagee u wada ilmaabti ilmeeyadiinayeen waay waxay ku tiri ina daalac duuniyo lahaa waana ii diid anuguna dadkaygaan lahaa waana soo doonta ninkii haatan daaweynhayo ma ahi duulaan gabadhu guriga dib kuma qabin ninka laba tuldooda xaraha laga qaaday tulud gabaya iyo tulud dadka la yiraahdo ha ninka haatan daaweyn ma ahi duulaan ha ninkaas xoolo lahaa ana gabadhayda aan dhalay ina daalac duuniyo lahaa waana ii diid anuguna dadkaygaan lahaa waana soo doonta ninkii haatan daaweynhayo ma ahi duulaan abshir bacad la gabaygaas wuxuu adduunyada qaftiriya waa yar uu dhax mana caytamin mana dambaamin saddex leey la yiraahdo waxaa jira saddex leey kale ka dulaa wiil u dhalay oo Mareykanka jooga gabay u tirshay abshir bacad suuqa kii bacad weyn ku lahaa niman baa lacag ku yeeshay ugu guula la yiraahdo Salaamal Abakar wiil u dhalay wiil badan inuu ma abshir bacad Mareykanka jooga anuu hada markuu dhiman soo dhawaan intaan kala hadlo saaxiibaan waa ugu ejir abshir abti waxaan ku soo xusaan ma u dhalay lacag waxay saayay soo dir أنا إيمان بدنا واه. صدق بدنا. صدق ما بلا رجع سوق عليه. وكوي ويلك وقبل يتش. صدق ليد وصدق ليد أيده وكله. وكوي هارون شري رو هذا هذا اللي يركوش ياكو. ما هو يدا كو أبتر أنا جاي هيبسم. ما أنت هو بقوله بهذا الكيو قابن. ويلك العكت دقيق وصوشوا. يقول عليه حلم هو يدا كو أبتر. هارون شري رو هذا اللي يركوش ياكو. ما هو يدا كو أبتر أنا جاي هيبسم. نفس بعلم ما تهدوي. ما أنت هو بقوله تفوق كمدة ما أنت هو بقوله بهذا الكيو قابن. وين لعبت دقدقة لعبت لوصوش أبشر مركا أبشر ما كخيلي أبشر هو بقوله كخير شو لأن ما ده أبشر كان لعبت أنا بعت جواي يوضع ذلك واحد كان معوسي أو لعبته ولا سؤال عروس اللي ودي وقول لي هو ودي كربا وأجركوا قبضة أصور مير وحكوا جاي يكون في كذا ويلكيس هارون جري أنا وعلى إيش قال ما أبشر النهارده أبشر معلم ما شاء الله ورك فرا بدن ولا أدبونا ننسعين إلهي عقلي اللي هلي كلمة magaalada Muqdisho wallahi way agoontooda markii ninkaas dhintay magaalada dadka xasuusta aad u dadku kaalmeyn jiray gargaar ku shaqeyn jiray asaga iyo abwaan guure ayaa makana ah yes waa loo yahay guure ma sha Allah ma sha Allah marka waxaad ii wadi qurbihii jabka horta waxaan dheeraad dadka tayla maqlayaan yaa lagu soo degdegin tan meeshan hadda yaran ka soo kac marka la yeeray xaaskiisa keenta wallahi uu ooyay afar sano jooga sharci weynaa ma hayo hadda waa nin baqaar dukaan uga furnaa iska dhaqnaa nolol fiican haystay de shalayga oo qof walba meel laga laabto ma la ooyina lagu jira haddaan laabana waxa la leeyahay riyaa kii maanta waaba soo waashay eber baa soo wadanku ku mushkiladu maxay tahay marka ma cimilada waa cimilada iyo wadankan oo mushkilada cimilada laga kulmo horta xilligeeda mugdiga dadku hayratada badan ba teeda kale guri ciidaha lagu tuuro ilmihi madax joogto bulshada meeshan waxa loo soo aadaa maqaayado lagu sheekaysto leeyahay bal xogaa soo nafiso ninka ma bas wada ma taxi wada ma meel yaro siifo ya ka shaqeeya ma rakeen uska shaqeeya rakeen waxa leeyahay dhisma afka wadanka inaan ku sheego ma siifo yana waa nadaafada waa afarta shaqo ugu badan waa dhismaha nadaafada taxiga baska midda ma ka shaqeysa nadaafadan ka shaqeeya ilaa hadan ka shaqeeya jilbaha dhaw way xanuunayaan waxaan dhaqaa dheel dhan oo iskool oo kala ka weyn hadda arkiyo iskaan aan joogno kala yaan iskool ku fadhiya laba laabkiis yaan subaxii 9 galaa 9 kalan ka soo bax iskoobay waxa iskoobay saas ba waxa lagu dhaqay waa ba shaqo waa ama tigayga ba laba sano soo dhiganahay laba sano xirfadaas wax loo dhaqan lay barahay laba sano waxa lay barahay dugsiga dhexe oo la yiraahdo dugsiga dhexe sharciga lagu qaato haddii xamar iskuulada iyo isbitaalada shaqo laga sii ka hor taas ma heli kara nasiiba ku helo ma leeyahay ayaalo nasiiba ku helo ina xamar anoo nool wallahi waa ooyay laba ragco salaad waa ilaa xamar amriga nabadna nagu yeel nolosha qaboobay ee dhar la'aanta inta seexdo hurdo macaan soo kacayay horta walaalihii soo caawiyay jannada Allah geeyay sababta nin wax ma hayn inna waana iska shaqaysay walaaluna walaala gabadha la dhashay dad wanaagsan oo ma sha Allah ilaahay qarasi amalkooda lama guud ama Allah waxa la yiraahdaa ninka inta wanaajisay aan ku ogay walaalahay iyo
walaalahay kaloo sii هذا المعاوي nolosha ma sha Allah ku xiyaan law dhima aan soo حدث في عرضش xid fiican ma sha Allah sidinimadu wax dheela ma sidinimadu ma adeer rabaa gabadha ilmaha biladna waana labadeena hooyo labadeena labada ta kala dhashay awalan meel kaliij الله اكبر mugdiga iga sheekay waxa tir markan mugdigu markuu joogo bismillaahir rahmaanir rahiim dadku istilaano day wadamadan xariga qafka noo salaadii quraanka ku noolahay ma ahan dadku meesha waa ku wada waasheen qafka asagoo stress hadda maanta nin dhintay 3 sano kooma ku jiray wadaad maanta dhintay macallin Sheekh Maxamed Liiraa soo sheegay ayaan loo marka qurba dhibayaan Ingiriis waan soo arkay Sweden aan arkay German aan arkay Denmark aan arkay Holland aan arkay Talyaaniga ma inta kale oo dhan waatay Finland waa aniga joogaba geeskii xitaa dhinaca waliba ruushka siixna ugu barafka badan ayaan loo marka noloshu waa saas dadkan waxaan kula tal lahaa wallahi waan nahaa xalad doona qaliimata la yiri ilaahay iimaanka ku sugaa in ummadii waa oday soo jabsatay Afrika waxa la moodayaa in Yurub jannada talgeedahan cagaaran inta ciyaal dhalinyaro sawiraan waxa loo leeyahay jannada yahay sanaa abwan waxaan ku gabagabaynaynaa suugaantii hore dhaxalkeeda yes Soomaalidu suugaanta wax soo gudbin jirtay yes bal wax nooga sheeg gabayadii suugaanta ahaa ee la dhaxlay iyo kaalinta uu suugaantu ku lahayd haynta iyo ilaalinta taariikhda Soomaalida ma sha Allah waxaan hormaray in la yiraahdo Aroola Maxamed Kadin Aroola nin wuxuu areed u samareeba oo habad gidiro cayra Ali Yusuf waqtigiisu joogo wuxuu ku yiri gabay ay ah sayidka ku tiri dagaal naga dhaxeeyay ninkan Talyaanigu saaxiib lahaa Ali Yusuf oo uu joogay muddo 24 sano adoogiisa 14 sano taariikhda lagu hayo وأنا أباي هو يلا كسوة جدنا في مدوغانا قوي جو أمان وبدله كل إنجليز كقال كعادية كفر بدها الجوريدة كوكو نبيه قال شعل أبقى الجودي مدو تشوف من ريحان كسي جود بسنة كذا قهاص يعني نقول ما جاش هذا هرد ده جماعة مسيين واي أنتوا قالي إسلام قال لك إللي أفقل وفا أمدي وكرنيني قول هون وذات كاسو حنوقع ويا واي قرار حمي إنها تنيجي ما جود بنا جاس كصواب حي أضو ما أنا كسكون عابي كما بيجي عليك كرتا أنتوا حرا كرا إنها تنيجي ما جود بنا جاس كصواب حي إذا نصدر على ترى حرا كرونا إن عبد الله حسن قوي قال لوكي كل واي أمان الله أمانه لكن waxaan jeclaan lahaa yiri hal shay inuu igu daro sayidkii waxaan ugu gabiyaa waa ii garaad xun haduu dhiraa wuxuu yiri boqol geelaha u dhiibi lahaa boqol geela sayidkii laakiin wadaadku uu keeysuu dhaa marka waxa sayidku inuu meesha sadana rabay wadaadnimada rag horta inta uu gabayay sayidka oo wadaadka ugu gabayda ma yareen hal dhuuxo kale markuu lahaa waa lagu digtaa dul haduu ku darnaan jiray dadunka uma xawa waa ku diirsaday wardayo waa ka wadaadkii si dabayshaday diin qalay dameer qalay wuxuu duunyahan jiray daasada ku shuba intuu soo dalooshaday markuu jabay iimayl aad hal dhuuxaad buu ugu digto ilaa dagaal kala dhaxeeyay nin la yiraahdo jaamac habiilo asan ragii aad ugu weerar ah wadaadka aan tumaatiyo murtaa ugu tuumaysin taladii ilaahay ka qaatu gari xamare talyaaniga ana mahdi atanaba waa yaaba gab aad u dheer waa rag badan oo wadaadku hatta Ismaaciil Miro gaashaan dhigiisa ahaa oo ku soo qatimay wadaadku inuu rag kibre ah markuu arab dheer gabayga ku qatimay arab dheer asaas oo kale wuxuu ku yiri arab dheer in reer burca hoos saajino ah wuxuu ku yiri matay kartay arooskayga caawa ka gabay wuxuu waral ma iga amana iska kayda may u dhahay ina joogta ina idilaysaa ma xiraysa may u dhahay gabaygu wuxuu bedelay dhinaca kale rag kibru ku soo dara sagaalka kibrika la yiraahaa shan budul maanta ka dhiga labana isaaqu ka dhiga midna in Abdullah Hasan ka dhiga midna Koofu ka dhiga wuxuu yiri kumayaalka reer Ali gari oo qabaalka uu iskaga sii kasi waayo wax waa qabaal waana ka bataan rago kibirka waa lagu kufaa kaasal la ogaad hartan dhuuran kooraha markuu kor ugu laalay garaad faarax dhay iyo karool kala macaanay dabadeedna kulankii gobol uu kala qaraaray rago kibirka waa lagu kufaa kaasal la ogaad afxa kama kuleelkii iyo ka kabadii ka shibdaha alu yiri intuu ka haguursaday كنا كانوا تلكل يا بارود تو كبير كوالو كفا كهل لوجان سجلنا اللي أكو صدر كمان سجلنا اللي أصل دانا واحد يميل مرة يا ناق ويسوع أركالي كسوكينا محل هاي كتيرنين أنا وحول علين وقتي أنا وصله هذا وقت وهذا مركنا كديجانينا هذه هذا ما سنت هاي سلطان سيلع سلطان عثمان ما شاء الله هذه هذا كلام هذا علينا وقتي قاري سعوديال سلطان كوحن كهلا ودن كفيلان وكما سنت داوشة برنامج كان انت مركنا كل مدون واحد لنا nabad galo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh si aad mar walba u hesho barnaamijyada ka baahan noolaato oo dhammaystiran waxaad u baahan tahay inaad rukumato ama subscriber ka noqoto barta YouTube-ka adiga oo markiiba heli doona barnaamijka markii aan soo gelino waad ku mahadsan tahay ku xirnaanshaha ha noolaato taageeradiinu wax weyn bay noo tahay mahadsanid